السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta iyo ayaamahan soo socda oo dhan waxaan isku dayi doonaa in aan qiimeyno taariikhdii halganka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya. Halgankan oo soo maray xaalado kala duwan. Waxaan maanta rabaa marka ugu horeysa waraysi aan ka qabtay guddoomiyihii hore ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya Admiral Maxamed Cumar Cismaan in aan qayb ka mid ah idinla wadaago. Sidoo kaleeto isla waqtigaas oo ay ahayd dhammaadkii sagaashameeyadii bilowgii 2000ka wafdiga uu admiraalku hogaaminayey waxaa la socday Dr. Dolaal, isagana waan waraystay. Waraysigaas isagana qaybo ka mid ah ayaan idinla wadaagi doonaa, laakiin waqtigan xaadirka ah waxaan rabaa dooda mar walba socotay ee ah magaca Ogaadenya iyo magaca Ogaadeen maxaa loogu baxshay iyo sidee shacabka Soomaaliyeed oo dhan ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ay uga dhex muuqan karaan. Marka segmentigan yar baan rabaa marka ugu horeysa in aan idinla wadaago, kadibna barnaamijyada kale soo socda ayaan ku dari doonaa qaybihiisa kala duwan. Bal ila daawada su-aashan markaan weydiinayay admiraalka. Su-aasha oo ah magaca Ogaadenya. Codka waa laciif, ha laga raalli ahaado. maadaama taa shacbigayga diyaar buu yahay shacbiga markay dadka fiirshaan kaleeto ee qolooyinka kale ah ay fiirshaan magaca ONLF ay arkaan magaca Ogaadeenka ah waxay yidhahdaan annaga kuma jirno shacbigaas aad Ogaadeen keliya kaas wata iyadu matala tahay in ay ku tahay sax in magaca ONLF la isticmaalo oo dadka kaleetana aan dan laga gelin say iyaga sheegteen horta magacan sida xaqiiqada waxa weeye magacan dhulka loo yaqaana hase yeeshee qabiil Ogaadeen la yidhaahdo waa jira dhulkana magaca waa loo yaqaana mana aha magacani magac hadda bilowday waa magac taariikhi ah kombiyuutarka hortayda haddaad garaacdo waxaad heli karaysaa magacan iyo taariikhdiisii iyo waxa uu yahay yaad helaysaa waxaad ogaanaysaa inayna qabiil ahayn inuu dhul yahay baad ogaanaysaa waxaad helaysaa encyclopediyaasha faraha badan ee halka yaalla kaad furto oodaa haddaad furto wuu kuu soo baxaya magacan iyo taariikhdiisii wuxuu yahay kuu soo baxaya dayuuradahan kale waaweyn hadda halka ka raacdo afrika aad sii dhex marayso maamabkooda waxa ugu jira oo dhan waxaa kuu soo baxaysa waxa ay tahay Ogaadeen waxay taa kuu soo baxaysa waxaa kuu soo baxaysa inuusan qabiil ahayn inuu dhul yahay ayaa kuu soo baxaysa magacana marka aad halgan u magac bixinayso waa in uu noqdo magac la garanayo oo shacbiga adduunka quruumaha adduunka ay garanayaan magacaas iyo dhulka uu yahay iyo cidda uu yahay in la garanayo taasi waa dhinaca kale waxa weeye dadkan odhanaya magacan waa qabiil ujeeddadu ma aha magaca ujeeddadu waxa weeye waa hadafka loo socdo waxa weeye waa xornimo iyo dadkan inay xuquuqdooda helaan ha iska daayeen magacanoo urur kale intay sameeyaan ha ku raadsadeen xuquuqdooda ka maqan kabacdi iyagoo magacaa kala haysta an ka wada hadalo ama se iskaba daayo taas yayna noqonin waxa weeye magacan ma doonayno ruux bannaanka taagan oo halkaa taagan inuu yidhaahdo magaca bedel si aan ururka u soo galo suurtagal maaha in ruux bannaanka taagan oo rajul shaarica inuu ku yidhaahdo magacaaga bedel kabacdi markaad magacaaga bedesho ayaan soo gelahayaa ururkaaga hadday ujeeddadiisu tahay xornimo iyo xuquuq inuu helo shardiba maaha in ururkayga soo galo urur kale oo halgamahaya oo la dagaalamahaya cadowga ha sameeyo ujeeddadu waxa weeye in cadowgaa lala dagaalamo waxaba yaraatay oo midab kala sooc oo hadday noqoto adigu waxaad tahay absamaaslaan nahay adigu waxaad tahay qoladaas baad tahay
haba yaraatee wax midab kala sooca oo ku jira xeerkiina ONLFta oo dadka kale ka soocaya dadka yihiin ma jira haba yaraatee horta ururkani waa urur wadani ah waa urur dimuqraadi ah waxaa weeye urur halganahaya oo xornimadiisa u halganahaya waxaa soo geli kara qof kasta oo muwaadin ah oo dalka u dhashay oo da'diisu 15 jir ka weyn tahay maskaxdiisuna ay fiyow tahay way u furan xataa waxaa soo geli karaya dad ajnabi ah ayaa soo geli karaya sharti waxaa weeye inuu barnaamijka ururka inuu rumaysan yahay nin walba ururkaasi waa u furan yahay nin walbana waa u baahannahay nin kasta oo ujeedadiisu ay tahay halgan iyo xornimo doon waan u baahannahay waananu soo dhawaynaynaa had walbana ururka kale waxaa u halgamahay intii baaqaas isticmaalka iyo dhibaatadiisu intay dhigto ayaa soo gelahaya inta kalena waan u baaqaynaa insha allah way soo geli doonaan dadkaan daba ogaadeenka ah aan dadkaan ogaadeenka ahayn ay dhahaan ururkaas kuma jiro haba yaraatee waxaan ogaadeen ahayn memberka ma ah maxaad ku odhanay runtii ururka sidaan kuu sheego waa urur wadani ah mana jeclin arrintaas reer hebel iyo qabiilka iyo waxyaabahaas in alla intii timaado ururkaa ka halgankaa kasoo qayb gasha waa ururkoodii wax kala sooqa oo aan ahayn nin walba tabartiisu intuu halgamo aan ahayn ma jirto marka cid kasta waan ugu baaqaynaa cid kastana raalli baan u kanaa inay ururkaa kasoo qayb gasho ama ha noqdo soomaali nin kasta uu yahay ka dega koonfur meesha ugu horbaalaysa iyo ka dega waqooyi ka galbeed dega iyo ka bari dega dhammaan jinsiga soomaaliya ninkii barnaamijkaa rumaysan waa u furan yahay ururkaasi aad wayna ku jiraan hadda naftooda haddii aan fiirino yacni ma aha qabiil keliya kuma jiro ururka qabaa'il aad fara badan baa ku jira oo kala duwan haddii qabaa'il kala fiiriyo laakiin muhimku qabiilka ma aha umana fura qabiil uma fura muhimku waxaa weeye yaa aaminsan ujeedadaas halganka iyo gobonnimadooda yaa aaminsan waxaa suurowday in fara badan oo ka soo horjeeda oo cadowga la socota oo magacyada aad sheegaysa inaan urlaynay aan gamka dhigna urlaynay maxaa yeelay way ka soo horjeeday in badan oo dadka hadda aad carabka ku dhufanaysa oo aad leedahay way ka cabanayaanna in ay safka hore ama madaxda ururka ay ka mid yihiin ama hogaamiyaasha ay ka mid yihiin marka shardi ma aha qabiil mana tixgelina inta badan qabiil waxa aanu tixgelina waxaa waa mabda'a principiyada ururkaas ku socdo iyo yaa barnaamijkan rumaysan waad mahadsan tahay admiraalku waad u jeedaan arrintan ku saabsan ogaadeen ama qabiilka aad buu u dhibsanaya xitaa ma uunan doonayn inuu ka jawaabo laakiin waxa ku qasbaneed in uu su-aalaha noocaasa in aan weydiinan kuna bilaabno barnaamijka taariikhiga ah ee aan hadda aan falanqaynayno arrimahan maxaa magaca loogu baxshay sababta keentay siduu u cabirayna waad u jeedeen wuxuu ku leeyahay waa magac taariikhi ah taariikhi ahaan baana ugu bixinay waxaanan ugu talagalnuu yidhaahdeen qof kasta oo aaminsan xornimo hadafka xornimada ah aaminsanna in uu dhibana yahay in uu nagala soo qayb qaato haddii uu nagala soo qayb qaadanayninna inay sameeyaan mid la dagaalamaya gumaystaha waa sidoo hadalka uu dhigaya qaybo kaleeto oo badan baan samayn doonaa oo aan isku dayaynaa inaan gogoos 10 daqiiqo ah aan kala soo dhexbaxno wuu dheer yahay shucuuc badan baa ku jirta laakiin muhiimaddu waxa weeye taariikhda halganka ayaan rabnaa in aan hoosta ka xariiqno insha allah intaan waqtigaal ka kulmayno barnaamijka taariikhiga ahaa halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu